بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمتي wanaagsan oo aan meel kasta adduunka joogtaan walaalaha sharafta leh ku soo dhawaada barnaamijkan kooban aan uga hadli doono arrin aniga ii gaar ah oo ay khusaysa waxaad ogtihiin ama maalmahan aad la socoteen in baraha bulshada ama social media aad iyo aad loogu hadalhayay xafladii meherkayga runtii arrintaasi waxay ku noqotay arrin surprise ah in ilaa waqtiga intaas la eg juhdiga intaas la eg lagu isticmaalo meherkayga runtiina waxaan oran karaa dee dhinac marka laga fiiriyo waxay tusinaysaa in aan ahay nin Soomaalida boos ku dhaxleh magac ku dhaxleh dad baa waxay rabaan inay magacaas iyo booskaas iga ridaan ama iga xumeeyaan oo sumcadeeda ku ciyaaraan walaalayaal waxaad ogtiin 14 bishii January aan ku dhex jirno inaan mehersaday Xamda Xaaji October oo Google iyo madal fiican oo qurux badan liigu siiyay isla markaana meelo kala duwan looga kala yimid gaalkacyo Garowe ilaa Jigjiga looga yimid gabadhaas sidii liisin lahaa odayaal akhyaar ah oo ahalkayga ah adeeraday ah oo dadkayga ah ay ii dooneen si sharafna lagu siiyay aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay Xamda Xaaji Axmed October waa wada taqaanaan aniga ayaa dumarka ka doortay aniga ayaa jeclaaday aniga ayaa guursaday runtiina waan ku faraxsanahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryayaa guurkeena inuu ka dhigo guur khayr qaba isla markaana una kala siiyo awlaad fiican oo dalka iyo dadka anfacda waxa jirta walaalayaal jawaab celin ama reaction ay dad badan ka sameeyeen guurkaas runtii waxaan aad iyo aad u qariibsaday inay soo baxeen dad badan oo ka xun oo dhibsaday isla markaana qaarkood ay ka dhigeen ceeb in gabar wariye ah uu guursado Naasir Cadeed oo dadka qaar ay oranayeen anigu sheekh baan u maleynaynay awadaad baan u maleynaynay muxuu gabadhan ku falayaa rag badanna waxay isku dayeen in ay abuuraan tashwiish iyo buuq fara badan intaas oo dhan wayna soo gaaraysay waana la soconay laakiin ma rabin inaan ka jawaabno ama aan ka bixino jawaab celin laakiin dad ahalka ah walaalaha ah asxaabta ah ayaa waxay naga dalbadeen gaar ahaan aniga laga dalbaday inaan arrinta ka jawaabo walaalayaal waxaa lisla dhaxmarayaa sawiro ay gashay Xamda habeenkii meherkeeda sidaad ogtihiin meherka waa laba qaybood qaybta hore oo ragga tagaan oo de gabadha lagu meherinayo oo Suuriyada iyo gabaatiga lagu kala qaadanayo habeenkiina waxa la qabtaa ay dumarku qabsadaan xaflad ay u qabtaan dumarka Xamda kama duuna hablaha Soomaaliyeed xafladaas oo kale ay qabsatay runtiina waxay halkaasi ku dhigatay waxay ayada ku qanacsan tahay anigu ma joogin goobjoog kama ahayn tala kuma lahayn hadii aan tala ku lahaan lahaana sidee waxad u dhaceen si ka duwan ayaan jeclaan lahaa inay u dhacaan inay u dhici lahayd insha Allah taala laakiin ma badhicinba waxa dhacday sawiradii xafladaas oo private aha oo khaas aha in ahalka iyo asxaabta Xamda qaarkood ay ku faafiyeen baraha bulshada isla markaana sawiradaasi ay dadku aad u faafinayaan ay si gaareen sawiradaasi baa waxa lagu kor qabtay clip aan kaga hadlayo hab dhaqanka aroosyada Soomaalida ay waayahan dambe u dhacaan oo aan dadka leeyahay walaalayaal waxa laga bedelo waxay leeyihiin marka waa nin munaafiq ah dadka kale uu diidan yahay inay dumarkoodu ma taqaana madaxa qawsadaan tiisina uu ogolaaday arintaasi oo ay rabaan inay aniga iga dhigaan qof kala hadlaya ama iga dhigaan dayuus reerkiisa xumaanta u ogol aan ka celinaynin isla markaana dadka kale u diidaya runtii aragtida noocaas oo kala waa aragti khaldan mana dhacayso raalina kama ihi xaaskayga iyo qof kalaba inay xumaan sameeyaan waxaan aaminsanahay dadka oo dhan in ay u hoggaansamaan kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam intaas waa taas waxaan shacabka Soomaaliyeed u sheegayaa si kasto ay dadku iskugu dayaan inay warxumo iga sameeyaan ama propaganda iga furaan inaan ahay Naasir Cadeedkii aad taqaaneen isla markaana mar walba aan jeclahay wanaaga inaan ila wadaago sidoo kale waxaan idin sheegayaa inaysan dhici doonin dacaayad lagu furo waxyaalo lagu propaganda lagu sameeyo in ay iga aamusiyaan ama iga joojiyaan xaqi aan dadku sheegi jiray wanaaga aan dadka la wadaagi jiray sidoo kale xumaan kasto la sheego wax kasto la sheego inaysan saameyn ku yeelanaynin xiriirka iyo jacaylka naga dhaxeeya aniga iyo Xamda walaalayaal markaan dib u fiiriyay dadka arintan wada ee buunbuuninaya horta waa dhowr nooc weeye dad ayaku dameeri dhaan raacday la yiraahdo oo dad baa waxaan iska raacay laakiin dadka waxaan ka dambeeya waa dad aanu ka xun arrimo aan dadka kala hadli jiray
ha noqoto mid siyaasad ha noqoto mid diin ha noqoto mid dhaqan xumo ah intaas dad ka xun oo naasir cadceed codkiisa iyo walaalaha uu Soomaaliyeed ku gaarsiinayo ka xun ayaa horta arrintan ii adeegsaday isla markaana raba inay sumcadeeda meel uga dhacaan oo ay iga dhigaan nin ma taqaanaa xumaan faafinaya laakiin waxaan leeyahay ma ihi sidaad moodeen ma ihi qof ma taqaanaa aad isku dayi kartaan inaad sumcadiisa wax u dhintaan sidaasba ha ahaato waxaan aaminsanahay qof kastoo bini aadan uu khaldamaa aniga waa khaldamaya adiga waa khaldamaysaa qof macsuuma ma jiro dadkii hadday khaldamaan in khaladkii la sii wado oo la sii faafiyo naftirkeeda ayaa dambi ah aniga xamda waxaa lagu siiyey madal qurxoon sidaan hore usoo sheegay waa lii meheriyey kitaab iyo sunna ayaa lagu siiyey xalaal ayaan ku qabaa waana xaaskaygii laakiin waxaa dhici karta dadka maanta aniga ugu mashquulsan ee gurigayga ku mashquulsan inay xaasna lahayn inay xaaraan raadinayaan inay xumaan kasta samaynayaan qof ilaahay subxaana watacaala caayay diinta caayay xumaan kasta ogolaaday kama sugeyn inuu dad kale wanaagooda ogolaado walaalayaal waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo oo aan iina sheego in wixii aan shalay radinayay oo aan lahaa liska dhaafo inaan maanta leeyahay liska dhaafo waxaana ka bilaabayaa naftayda waxaan ku xijinayaa reerkayga waxaan ku xijinayaa ahalkayga waxaan u sheegayaa ummadoo dhan ugu dambeyntii waxaan rabaa aayad qur'aan ah oo dad badan ay khalad u fahmeen oo ah aayadaasi la rabo in anigana lagu riixo ciwaan ka dhigteen oo ah ata'muruuna annaasa bilbirri watansawna anfusakum wa antum tatluuna alkitaaba afalaa tacqiluun dadka ma waxaad faraysaan wanaaga oo naftiinan waad hilmaamaysaan ayadaas macnaheeda ma ahan haddaad xumaan samaynaysid inaadan wanaagga dadka farin in dadka wanaagga la faro xumaan laga reebo waa laba waajib oo kala duwan alamru bilmacruuf waa waajib gooni ah annahyu can ilmunkarna waa waajib gooni ah in wanaag xumaa liska reebo wanaagga lisfaro waa laba arrin oo kala madax bannaan adigoo xumaan samaynaysid dadka wanaagga waad fari kartaa adigoo mataqaanaa wanaag samaynaysid dadka xumaan waa ka reebi kartaa adigoo wanaag samaynaysid way dhici kartaa inaad adigana xumaan samaysid yani wax isku xiran ma ahan sidoo kale walaalayaal waxaan rabaa inaan idiin sheego hadalkii nabi shucayb calayhi salaam uu leeyahay suurat huud wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum canhu in uriidu ila alislaaxa ma istatactu وما توفيقي إلا بالله والله لا يلمد دونيو إن حمان أنت إنك الريبو أن حمانتي إيدين دومرو waxaan doonayaa ay tahay mar walba wanaaga naasir cadceed waa bashar wuu khaldama dambi uu ka dhaca wax walbana wuu samayn karaa sidoo kale xaaskayga dambi uu geli kartaa waa bashar dadka dhan way geli karaan waxaan si aaminsanahay dambigan galo ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa ila xisaabtamayo walaa taziru waziratun wizra ukhra nafi naf kale dambigeeda ma xambaarayso saasay tahay walaalayaal ilaahay subxaanahu wa ta'ala hana sharfo ilaahay subxaanahu wa ta'ala xaqana waafajiyo waxaan rabaa dhammaan inaan u sheego si kastoo ay iskugu dayaan inay xumaan abuuraan jawi xun abuuraan walaalayaal waxaan leeyahay waxba insha allahu tacaala ii dhimi mayso waxna u dhimi mayso jacaylkayga iyo xiriirkayga iyo qoyskayga waxaan ina sheegayaa inaan ahay mid mar walba ku faani doona wanaaga qoyskiisa jacaylkiisana dadka la wadaagi doono dadka warxumada tashiilka wadana waxaan leeyahay idinka la ina taalaa haddaba waxaan leeyahay ka dhamaada ducadiina u baahannahay saaxiib yaa noo soo duceeya wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu